sida awgeed ninka aynu ka sheekaynay Fudayl ibn Iyaad nin wuxuu ahaa markii hore burcad ah oo khamriga caba oo xanuunka aynu ka sheekaynay caawa u shaqale oo dadku jidka ka mari waayeen oo haddii qorraxdu dhacdo deegaanka uu joogo wax socon jiray ma jiraan laga baqo oo dadka dhibay buu ahaa habeenkii dambe ayuu qof dumar oo aan wanaagsanayn buu la ballamay in xumaan ay dhex marto dabeetana goor dambe oo dadku kala seexday sabbarkii ah ayuu soo tegey isagoo gidaarkii iyo derbigii intuu qabsaday fuulay isle aad u dhacdid qoftii aad ballansanaydeen aqalkeeda ayuu wuxuu maqlay aqalka ku qabsan daaraddiisa bannaanka ah nin tukanaya oo salaatuleyl u taagan muxuu akhrinayaa ninka salaatuleylka u taagan meesha suuratulxadiid aayad ku jirta ayuu akhrinayaa aayaddii markuu maqlay alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wamaa nazala calayhim min alxaq aayaadkaasuu maqlay gidaarkuu saa u haystaa weli kama dhicin balaa 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 micnaheedu waa maxay miyaanay u dhowaanin dadka muslimiinta ee mu'miniinta iimaanka leh miyaan la gaarin wakhtigii qalbigoodu ilaahay u khushuuci lahaa oo ay isdaba qaban lahaayeen oo wixii macaasiya dunuuba ay ku jiraan faraha kala bixi lahaayeen lama gaarin miyaa wakhtigaa waa la gaaray ilaahayow wuu ka soo noqon waa meeshuu ku toobad keenayba markuu xoogaa soo socday ayuu wuxuu arkay dad awr iyo wax wato oo taaganoo wada hadlaya show dadku isagay ka hadlayaan markaas wuxuu isiriyay ku arkine bal u fadhiiso way wada hadlayaan waxay leeyihin war inadejiya war awrta inoo fura war ninkii inkaarta qabay ee Fudayl ahaa baa meeshan ku jira ma foga war waxba ina ka reebi maayo waa ina dhacaya waa ina laynaya war socon mayna ina dejiya iyo xoogaa aan soconno iyaga wada hadlay waa maqlaya isaga marka waa ninkaasaa looga baqay moogta markaasuu ilmeeyey muxuu noqday markii dambe kitaab tafsiir ah kitaab la sharxay oo xadiis ah haddaad saa u kala furtid qaala Fudayl ibn Iyaad umbad arkaysa caabidu alxaramayn baa loo bixiyey xaramkaasu muddo dhan fadhiyey caalim noqday diinta ilaahay bartay caabid uu noqday